بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له مسلمين تا ku xiran kanaalka waanada qoyska isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada waano dhaxalgal u ah dhismaha qoyska. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa talooyin muhiim u ah farxadda lamaanaha qoyska haddii uu Allah awoodo inoo ogolaado la socod wanaagsan. Talada koowaad, si degan in loo xaliyo khilaafaadka ama dhibaatooyinka qoyska. Sidaan wada ognahay, khilaafku waa burburka qoyska. Dhibaatada, isku dhacyada, ismarinwaaga iyo isfaham daraduba guri kasta way ka jirtaa. Laakiin qoyska faraxsan iyo qoyska aan faraxsanayn waxay ku kala duwan yihiin. In qoyska faraxsan uu ku saleysan yahay inuu khilaafkiisa ama dhibaatada ka dhex taagan qoysku ku xalliyo si caqli gal ah oo degan si loo helo xasilooni iyo farxad waarta. Casharna laga qaato, buugna lagu qorto, lagana fogaado inuu mar kale soo laabto khilaafka. Halka qoyska aan deganeyn si degdeg ahna ku xalliyo khilaafka ama dhibaatada daahna aan ka rogin asbaabihii keenay, su'aalna aan iska weydiinin. Qoyskaas ama lamaanahaas ma awoodayaan inay xalliyaan dhibaatooyinkooda, waxayna bilaabayaan inay is eedeeyaan midba midka kale ee xubnaha qoyska. Sidaas darteed, mar walba waxaa loo baahan yahay in dhibaatada taagan loo xalliyo si degan si loo helo xal waara. Hadafka ugu weyn ayaa ah in dhibaatada aynan sii kordhin ama sii xumaanin, xiriirka qoyskana si xun ku dhamaanin. Talada labaad,